جزاه الله خيرا. شيخ الله سبحانه وتعالى كتاب المريو سلوي فربنا بامشي يلا وانا كعب سنه اني فربطان شيخ ورنا waxay leedahay aniga oo sheekh 12 sano jira ayuu dhiig ugu dhacay soonkii ugu horeeyayna in yar baan ka soomay marka soonkaas waajib uu igu yahay inaan gudo. alxamdulilah gabadha dhiigga hadduu ku dhaco xukunkii dhiig iyo qaangaadhka wuxuu qaataa ugu yaraan markay 9 sano u dhammaato wixii 9 sano ka yar dhiiggaasi dhiig xukun sharciga caado ah oo lagu qaangaadho ma noqdo. haddii 9 sano u dhammaato wixii ka dambeeya uu dhiiggii ku dhaco qofkaasi way qaangaadhay salaadii iyo soonkiina waajib bay ku noqdeen. intaa kadib ama ka u horeeya ha u noqdo ama kii u dambeeyey ha noqdo wixii sawm ahaayee aanay soomin ee ka tegey qadaheeda waa lagu leeyahay. wakhtigaa dheere aynan qadaynna waxaa laga rabaa ilaahay dembi dhaaf inay ka weydiisato daahintii oo nooc dayacaadoo waajibkii lala daahaya kadibna intii u dhimanayd inay qadaysaa lagu leeyahay oo waajiba. baaraka allahu fiikum. su-aasha labaad waxay leedahay gabadhan sheekh anoo caado qaba qur-aanka ma akhrin karaa anigoon qur-aan kitaabanaynin macnaha waan xifdisanahay bay ka dhigan tahay. alxamdulilah su-aashan waxay ka mid tahay su-aalaha mar walba soo laalaabta 2 sababood oo marka koowaadee dee gabdhuhu dhiiggan caadadii bil walbuu soo laalaabtaa oo wax joogto oo soo laalaabanaya oo soo noqnoqonaya. waa marka labaadee dee qur-aankii iyo akhriskiisii waa wax mar walba loo baahan yahay marka dee bil walba xaalad taagan oo haysata weeye sida badan. intaa waxaa dheer dee culammada muslimiinta oo ku kala aragti duwan oo ku qaybsan baa dee labada wadaadee isdaba socota ay maqlaan ama ay dhegaystaan baa midna haabuu leeyahay midna mayuu leeyahay marka in lagu soo celceliyaayey waa wax dabiici ah in la maqlo mar walba iyadoo soo noqonaysa. su-aashan iyo su-aalo kaloo badan oo lamida waxay noqon karaan qur-aankii ma aqrin karaa kitaabkii ma qaban karaa dugsigii ma tegi karaa masaajidka ma xaadiri karaa haddii darsi iyo cashar iyo muxaadariya ka jiraan gabadhu xilliga caadada ay qabto iyada iyo qur-aanka maxaa dhex mari kara sabab kasta ugu dhex maraba waxaan filayaa waa laga yaabaa su-aalo kaloo fara badan oo qaybaha kale qaybo ka mida taabanayana inay soo socdaan marka waxaan rabaa inaan jumleeyo si aynan wakhti kaloo badan su-aalo kaloo noocan oo kaleoo yimid maanta inooga qaadan. gabadhu xilliga caadada ay qabto waxaa wanaagsan malihii waxaa waajiba waxaan leeyahay waxaa wanaagsan intay ka maarmi karto akhriska qur-aanka qur-aan ahaan loo akhriyo inay iska dayso si ay khilaafka iyo muranka waa dambaatay maadan dambaabin ay uga baxdo. qaacidada fiqi culimmadeennuna waxay odhanaysaa alkhuruuju min alkhilaafi mustaxab wixii khilaaf ka jiro inaad iska badaysaa fiican. soomaaliduna waxay tidhaahdaa meeshan waa cabsi iyo cabsi maaha cabsi ku daa haddiiba la ysku haysto waa dembi iyo dembi ma aha asaaad ka maarmi karto inaadan halkaaba isgelin owdaa dambaabtay la ysku kaa qabsan bay ku fiicanta haddii aan markaa wax dan oo ku qasbaysaayi jirin. hadduu wax ku kallifaya jiro sida imtixaanuu qofku gelayo ama qur-aanu inuu ka luma ka baqayo dadku isku awood maaha xifdigoodu qofna haddii uusan joogto u daba soconin markaaba waa lumaya qofna wixii uu xifdiyey maalmo kadib waa xasuusan karaya. haddii uu qur-aankii uu soo xifdinayay qofku inuu ka luma uu ka baqayo ama ay timaado inay imtixaanaad iyo dhaafayaan iyo waxbarasho uu soo waday ama ay danta musxafkaba ku jirto gabadhu inay qaado
ama meeluu dhigaba uusan qofku haynin oo ku dhiga uusan hayn dee gabadhu iyadoo meel aaday oo musxafkeedii wadato oo baabuur saaran oo jid socota dhiigga caadadu ku dhici karaa dhiigga caadadu wuxuu qabaa iyadoo qabta bay arki kartaa musxaf bannaan yaalla xilli roob da-ayo dee u daa la dhihi maayo roobkaa ku dee adu ha taaban haddii ay maslaxa raajixa ku jirto inay ama taabato ama qur-aankii akhrido way samayn kartaa laakiin intaan wax ku qasbaya jirin ama masaajka gelitaankiisii fadhigiisii ama musxafka taabashadiisii ama akhriskii qur-aanka inay iska daysaa fiican si ay khilaafka uga fogaato intaasi waa markii qur-aanka loo aqrinayo ku talageliya niyad qur-aan inuu yahay haddii aan loo aqriyayni qur-aan inuu yahay ee dikri iyo duca loo aqrinayahay dhibaato ma laha oo inama alacmaalu binniyaati waaye maxaan ka wadnaa waa ducaysanaysaa ducooyin baana qur-aanka ku jira ducadaa qur-aanka ku jirta rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqina cadaaba annaar haddaad niyad aayad qur-aana u aqriyaysana dee aayad qur-aan ay noqon hadday niyaddaadu inaad ducaysanaysa tahayna ducay noqonoo qur-aan maaha saas darteed uu qofku ducaysanayo o alla baryayo ducooyin qur-aanka ku jirana duca ahaan u aqrinayo qur-aan muusan akhriyin ducu akhriyey hadduu seexanayo oo adkaaru nowm uu akhrisanayo oo adkaartii ay ikhlaaska iyo qul acuudu birbilfalaq iyo birabbinaas iyo ayad kursiga soo galaan oo adkaartii hurdada iyo nowmka uu akhristaay adkaaru nowm buu akhriyey ee qur-aan muunan akhriyin waa hadba niyada ku talagalka wuxuu yahay saa darteed baa waxaynu nidhi mararba kusoo celcelinay markuu akrinaya qur-aan ahaanna u akrinaya wey markuu niyada adkaar iyo duca u akrinayahay axkaamtii qur-aanka qaadan mayso wabilaahi towfiiq saa-iladan waxay leedahay sheekh gabadhan xanuun maskaxda ay qabtaa marka way ishalmaamaysaa wayna qaan gaadhay wayna ishalmaamaysaa soon baa marka ay soontaa iyadoona sugeyn bay ishalmaamaysaa gabadhaas iyada ah maxaa lagu samaynaa soonkeeda ma soomaysaa oo ma lagu leeyahay soon oo waajib taasay ka wadaan ma filaya alxamdulilah way salmaamaysaa markay salmaanto dee maxay samaynaysaa maskaxiyan baa halmaan way iska cabaysaa way iska cunaysaa masaladu qofku haddii ay tahay intuu isalmaamo iyo waxyaabihii soonka jebinaya samaynayaa dhib ma laha xataa qofkaan xanuunsanayn haddii ramadaanka inuu soomanaa halmaamo cuno uu cabo soonkiisi waa u jiraa masala qofku maskaxaan buu xanuunsan yahay iyo maskaxaan ma xanuunsana kuma xidhna waxay ku xidhan tahay qofkaa ma xasuusnaa markuu waxaan soonka jabiya samaynaya mise ma xasuusnayn haddii xasuustiisu maqnayd soonkiisa waxbaan wa dhimaysa taa waa midda kun qofka xanuunka maskaxda ah haddii uu gaarsiiyo inuusan waxba kala garanaynin waxba kala xasuusanaynin takaaliifta iyo waajibaadku way ka dhacaan waxba laguma laha waayo caqli jooga bay takaaliifta iyo waajibaadka shariicadu ku waajibaan hadduu caqligu tago usan waxba kala ogaanaynin qofkii dee waxba laguma laha laa salaad baan lagu lahayn walaa soom baan lagu lahayn heerkaa haddii uu gaadho wey haddii kale wixii uu halmaan ku sameeyo dhibaato ma laha bilahi towfiiq alxamdulilah su-aalo dheer oo lasoo koobay weeye su-aal waxay leedahay gabadhani dhiig baa habeenkii fiidkii mar walba iga yimaada xilliga suxuurta ka horna wuu iga dhammaadaa marka waan iska soomaaye soonkaygii xukunkiisu muxuu noqonayaa dabcan dhiiggaa joogtadaee mar walba imanaya dhiig caadaa maaha waa dhiig furan ama waxaa carabiga istixaadada lagu yidhaahdo dhiigga sidaasoo kaleetaa gabadha haddii uu ku yimaado wixiina joogta noqdo waxay tix raacaysaa inta aanu ku bilaaban dhibkani say caadadeedu ahaan jirtay bay tix raacaysaa wakhtigii caadadu ay ku dhici jirtay ilaa wakhtigii ka guyi jirtayna xukunkii caadaday qaadanaysaa inta kalena xukunkii qofkii daahirka ahaa bay qaadan markay dhiiggaa isku aragtana jirkeeda iyo dharkeeda wixii uu gaaro way ka nadiifin way ka weysaysan
salaadeedana way tukani soonkeedana way soomi. su-aashan kale waa qayb dumarka waxay ka cabanayaan haddii aanu dumar nahay ma haysanno meelo aan wax ku baranno culumta sharciga ah, fadlan codsiga hana loo tixgeliyo. horta hadduu qofku isagu isgabo waa dabiici inuu wuxuu mudnaa waayo. mujtamaca idinka ugu badan haddaa idinku is-abaabushaan meel iyo 12 ba aad wax ku barataan waad heli kartaan. waxa la idin samayn kare ugu badan waa 2 masaajidii qayb dumarka in la sameeyo, saas waa caadi. haddaa intaad tagtaan wax barataan ood wax ku akhrisataan dee intaan ogahay la isuma diido. si guud masaajida mid gaara cillad kanada ka jirta garan maayo. way jiraan meelaha macaahid iyo waxbarashaduna iyo madaaristuna qaybo dumarna waa jiraan, wakhtiyo qaybo dumar loogu dhigana waa jiraan. laakiin intaa waxaa la yidhi biyo webi sacabadaada iyo gacmahaagaa looga dhargaa. ana waxaan dhihi lahaa waadna joogtaan inaan wax la-aan idiin diideysa inaad wax samaysataanna ma filayo. haddaad idinku is-abaabushaan ood guddi iyo maamul samaysataan ood muruqiinna iyo caqligiinna isku dartaan meelo waaweynna waa kirayn kartaan, meelo waaweynna waa dhisi kartaan, macallimiinna waa kafaalo qaadi kartaan. marka waxaan dhihi lahaa waxba ragga ka sugine idinku intaa is-abaabushaan hawshiinni iyo baahidiinna qabsada. hawshiinni iyo baahidiinna idinku qabsada. iyagana waxaad uga maarmi weydaan u kaashada oo waxaan ugu biiriya dhaha. haddii macallin loo baahdo, haddii maal dhaqaalaad uga baahataan, haddaad maanta tiraahdaan meel baan soo helloon rabnaa inaan dhisanno. aniga waxaan ka rumaysnaya masaajid iyo meel waliba haddaad is-abaabushaan wixii kastoo suuragala waa laydinkala ururin, waa laydinlayla qaban. waraaqa soo dhammayna looyar baad lacag siinaysaan, danihiinna kale adduunkaba waad dhammaysataan. midda diinta inaad waxba u daba fadhin baa aniga ila quman. su-aal kale oo halkan iyada lafteedu dheer waxay leeyihiin dhibaato badan baa jirto, daayartii khatar bay ku jiraan, dunuubtii iyo macaasidii xaaraantii baa badatay, guurkiina u adkaaday, adaygii dhaqaale waxaa ku soo darmaday baa laleeyahay adayg caafimaad oo cudurradii baa batay, xiriirka laga qaadayey, dadkiiba waa la is-aamini laaya. waxaan rabaa inaan idhaahdo guurku in la fududeeyo, waalidka wax dhalayna dan baa ugu jirta, ubadka iyo ilmahana dan baa ugu jirta. tan caafimaadku waa laga yaabaa waa wax hadda inagu cusub oo iyada lafteedu xal bay leedahay. waalidka waxaan dhihi lahaa guurka ha la fududeeyo. maraan westernka iyo yurubtaa tagnay oon joogno muctamaraad la qabanayay, mushkilad waxaa soo baxday da'yartii way qaan gaadheen. dadkeennuna da'yarta iyagoo iskuulle iyo sekandariya dhigta inay guursadaan dhaqanka soomaalida ka mid maaha. dhallinyartii wiilal iyo gabdhana dhul waxay joogaan saaxiib lala wada leeyahay. gabadhuna waa inay saaxiib yeelataa, wiilkuna waa inuu saaxiib yeeshaa. waalidka arrintii ma ogola, ilmihiina marnaba dayn maayaan. iriddaa laga baxay, luqaddii waa lagaa yaqaan, waddankii waa lagaa yaqaan, iskuullaha la aaday, magaaladaa la aaday, labalabaa saaxiib loo yahay. saan wax kale u imaninna labada kaaf baa la isticmaalaa. labada kaaf ma taqaanaan? condom iyo kinin baa la isticmaalaa. wixii kaloo dhanna waa la sameeyaa. mushkiladdii see loo xalliyaa markay noqotay waxaan soo jeedinay waxaa ka mid ahaa da'yartani kollaba wixii way samaynayaan, iyadoo dembi iyo xaaraanana way samaynayaan. dadkii iyo reerkiina hadhow berri markii wax lagu cancanaanto way ka cararayaan, meel xun iyo gaalo iyo gacan xun bay gelayaan.
labadooda kaafna ha wataan labadii isu rabtana isu xalaaleeya cashirkay diyaarsanayaan marna xaafadda ha ku diyaarsadaan marna xaafadda kale ha ku diyaarsadaan kollaba xiriirkii waa jiraa duurkana waa la isla aadayaa labadii kaafna waa la samaynayaa maxaa soo haray xaaraan iyo dembi iyo xaafada ka carar baa soo kordhay labadaa meesha aan ka saarno meerkii xalaashaan aan u samayno xaafadihiina caadi ha ka noqoto faa'iido kaloo saddexaadna way yeelatay oo markii sidaa la yeelo isaguna wuu waardiyeen iyaduna isaga way waardiyeen isaguna kuwo kaloo xunxun bay ka waardiyeen iyadana wuxuu ka waardiyeen kuwo kaloo xunxun buu ka waardiyeen wiilkiina waardiyaa la saaray gabadhiina waardiyaa la saaray haddii kale wax isku xayiraya ma jiro hadhaweenada qaarkood maalmaha qaarkood mid waliba meelaha kale soo qaraafi waagaa magacii loo bixiyey wuxuu ahaa islamic boyfriend iyo islamic girlfriend bay u bixiyeen waaga dadkii westernka joogay manaa wixii ku labaad dhacayaan waalidka waxaan dhihi lahaa waktigu oo qofku waktigiisa la noolaada kama maarmo hadday yimaadaan duruufaha sidaas oo kaleeta ah ubadkaagii inuu xalaal ku asturan yahay baa ka fiican inuu xaaraan dabaasho inaad tiraahdo anigu wakti baan la sugayaa waktiga maxaad kuwa gaartay adduunka laguwa kala tegi adduun laguwa kala tegay waktiga waxaad ku gaartaanba malaha waalidku guurka daada fog iyo dantiya dhaqaalaha badan ay ku xirayaan ha ka daayaan daayartana duruufahan badan ee shahwada kicinaya ee xaaraanta riixayaa ku badane guurkan ayaan lagu daahinin kharashkiisa iyo dhaqaalihiisana ayaan lagu badinin shuruuddiisii iyo qofkay guursanayaanna ayaan lagu adkaynin si iyagana xaaraan iyo dembi iyo cudurro looga badbaadiyo reerkoodii iyo dadkoodiina aanay uga didin oo ynan uga cararin magacaad doonaysaan kadib markaa idinku u bixiyo tan cudurradu xalka sharcigee la ogol yahay haddaan xagga waalidka cadaadis iyo cilili ka iman labadii qof ay isdoonayeen inay dhakhtar baaritaan tagaan wax sharcigu ogol yahay weeye oo wiilkiiyo gabadhuba meel nadiifa la iska soo baaro markaa kadibna wax la isku darsado haddii meesha ay ka soo baxda dee in cudur dilaa'a meeshan jira ama bilowdayna qofka un ha lagu kaalmeeyo daawadii allaha inuu caafiyo waxaad hubtood ka carartaad haysaa marar qaarkood waswaaska badanna qofka cudur iyo xanuun buu ku ridaayo qofkii guud ahaan inuu dhowrsan yahay la og yahay baaritaanka yarna lagu sameeyay dhibaato malaho xalka sharcigii waa baaritaan in la sameeyo su-aashani waa su-aal dhinac tabasho ka ah dhinacna isweydiinka ah qofka dumarka ee soo qoray waxay leeyihiin aniga gaar ahaan ama guud ahaan culimmadu rag iyo dumarka markay ka hadlayaan ragga ay sarraysiiyaan maantana waxoogay raggaa dhaliishay horta badanaa maxaa ragga loo sarraysiiyaayoo dumarka loo yara halliidaa horta waxay ku fiicnaan lahayd waxa laga hadlay ee ragga lagu sarraysiiyey haddii tusaale laga bixin lahaa waxbaa laga dhihi lahaa mujtamacu waajibaadka rabbina waa loo siman yahay qayb waajibaadka ka mid ah lagu kala duwanaado asaaska iimaanka ilaahay ka rabana waa loo siman yahay aakharo qof walba iimaan iyo camalkiisa inuu yahayna waa loo siman yahay adduunyada marka la joogo waa la kala duwan yahay ilaahay aadamaha markii uu abuuray rag iyo dumar abuurkoodii iyo muuqaalkoodii waxay u diyaar yihiin isku mid kama dhigin abuurkan la kala duwayna wuxuu tusaale u yahay oo ka macno yahay nolosha qaybo kala duwan bay ku leeyihiin qaab socodka nolosha markii reer la noqdo ee wiil iyo gabadh isguursadaan maxaa la yidhahdaa wiilkiiyo ninkaa reerka iyo biilkiisoo dhan laga rabaa ilaan labadaba guur waa u baahnaayeen gurigana waa u baahnaayeen ilmaha iyo ubadka la dhalayna way wada dhaleen maxaa ninka keliya kharashka iyo culayska loo saaray xaaladda ilma ay qaaday iyo ur ay yeelatay iyo ilmo ay nuujinaysaay
waxay ka hor istaagaysaa in badan inay xilkii shaqo iyo xamaal iyo orod iyo habeen dhex gasho. reerku wuxuu u baahan yahay gudaha in laga dhisana waa u baahan yahay, bannaanka in laga soo qadhaabana waa u baahan yahay. qaab abuurka ilaahay u abuuray reerkii markay reer noqdaan miyay dhici kartaa ilmaha dhalmadiisa in lagu kallaytamo oo sanadna isagu ha dhala sanadna iyadu ma ha dhasha la yidhaahdo? haddaan jeclaan lahayn xataa waxaan samayn karna maaha. in la yidhaahdo hooyo uur yeelatay oo wallacaysa oo berri cuslaanaysa oo cuntada iyo cabbitaanku dhibayo oo haddana umul gelaysa haddana ilmo nuujinaysa, wixii baahidii reerka dhan adaa lagaa rabaayey xaq maaha, garsoor ma aha. saas darteed ninka haddii uu yidhaahda maanta reerna waan wada nahay, ilmana waan wada dhallay, baahi guurna waan wada qabnay, maxaa aniga keligay la ii saaro oo culayska keligay la ii saaraya hadduu yidhaahdo, luqadda bini aadamku ku hadlee qaabka hadda uu fikiraa gar way noqon kartaa. kadib waxay noqon guriga kiradiisa aan nusnus ula baxno, biilka reerkana aan nusnus ula baxno, hawsha gurigana aan nusnus u qaybsanno. laakiin aadamu waxay gaari lahayn ilmahana sanad aan dhallo, taa waa la keri waayey. reerkaasi wuxuu noqonayaa iskaabula guri wada degan. reer iska mas-uula ma noqonayee iskaabula guri wada degan. gabadhase uurka iyo ilmaha iyo nuujinta maraysaay in la yidhaahdaa biil iyo kiradii iyo biilkii baa lagaa rabaa, culaysayna qaadi karin weeye aragtida sharcigu. haddii la yidhaahda marka ninkii adaa lagaa rabaa meher, adaa biil lagaa rabaa, adigaa dawadii lagaa rabaa, adaa kiradii lagaa rabaa, intaba haddii la yidhaahdo, haddii caqliga loo fikira wuu dhihi karaa maxaa keliga culayska dhaqaalay saaray. haddii ninkii intaa laga rabo, reerku waa unugta ugu qaalisan ee aadama soo saarta. unug aadama soo saarta wey. haddii halkaa kiyos laga furo oo qofna ka shaqeeya, qofna alaabta soo gado, qofna xisaabiyo, inayna mas-uul yeelanin suuragal miya? warshaddu mas-uul la-aan inay dadka meeshii ka shaqaynayay ama wada lahaa mas-uuliyaddeeda u sinmaan ma dhici karaan? haddii la yidhaahdo warshaddii aadama soo saaraysay garba siman ha noqdaan, reerku haduma wey. ninka waxaa culayska loo saaray inuu reerku midho dhalo, taranku jiro, waxaa ugu qaalisane ilmo iyo ubada la soo saara aadamo wey. iyadana hala ismaqlo waxa loo yidhi middaa lafteedii wey. iskuullaad furataan, maamulka, ardayga, macallinka, shaqaaluhu kala sarrayn baa ka jirta. maamul kala sarrayn shaksi maaha, kala sarrayn muhiimad iyo mas-uuliyad waay. waddankaan joognaayey madaxweynuu leeh, wasiiradu madax siman ha noqdaan oo la isma xukumo haddii la yidhaahdo dee waddanku kala socon maayo, wasaaradduna kala socon mayso, iskuulkuna kala socon maayo, guriga iyo reerkuna haddaan mas-uulla kala ahayn kala socon maayo. taasi sarrayn shaksi ma ahane qiimo iyo aakhare iyo adduunba inuu qofka macallinkii qiimo badan yaha dhici karta, laakiin cid kala maamulo tahay. mas-uul waa la yahay, waa la kala sarreeya. waxaan filayaa waxa ugu badan ee waxbaa la kala sarraysiyaa laga hadlaya halkaa waa la kala mas-uuliyad baa la kala leeyahay. maxay ka dhigan tahay? waa la is amraabay ka dhigan tahay, waa la isla xisaabtamaabay ka dhigan tahay. qofkii xilkiisa ka soo bixi waaya xeer ciqaabeed baa la mariyaabay ka dhigan tahay. ha lagu ciqaabo mushaar laga gooyey oo nushuus baa yimid oo nafaqo laba leh ha noqoto, ha lagu ciqaabo meesha xaaqoo nadiifi ardayga la yidhaahdo. meelaha qaarkood, hay-adaha qaarkood xabsi baa la geliya ha lagu ciqaabo, bannaan baa la fadhiisiya ha lagu ciqaabo. hadba waa sida loo dhigi iyo maxaa xeer ciqaabood ku habboon qofka xilkiisa gudan waaye. markay xil iyo maamul iyo mas-uuliyad lagu kala sarreeya macnaheedu ma aha in qofka shaksi iyo qiimihii ilaahay agtiisa iyo shaksiyad la kala fiican yahay maaha. haddii taa laga wado dee ragga laftiisaa kala sarreeya. ragguna waxay ka cabsadaan oo maamula
qof dumarahoo fiican oy qabaan baa jira waxa laalay waxay rabta ka qaada wax kastoo bannaanka uu yidhaahdana guriga markuu yimaado maamul buu hoos yimaadaayo halkaa fadhiiso wixii laguu keenay sug weeye jikada hayman fadhiga wixii laguu keenay sug meesha laguu diyaariyey shiifka loogu talagalay seexo halka lagugu talagalay fadhiga fadhiiso waan iska dhex wareegi lagama yeelo maxaa ka rabtaa baa laleeyahay meesha maxaa ka soo doontay noloshaas sidaasa baahida nolosha iskaashigeeda iyo iska kaalmaysigeedaana keenaya anigu ma garanayo culimmadu meelay rag mar walba dumarka ka sarraysiiyeene kaalinta la kala leeyahay noloshu haddaan saa la yeelin diyaan iska badayno iskaabula wada ahaan iskaabula ha la wada noqdo xal ma ahade oo tii ka horraysay baa laga cabaadayey baahidii iyo reerkii iyo guurkii loo baahnaa ayaa dhibaatada ka taagan khayr allah idin siiyee haddii la yidhaahda rawlka iyo kaalintaasaa la kala leeyahay in dadka la kala sarraysiiyey maaha laakiin thaqaafaddii reer galbeedka waxayna bartay kioskuna maamul buu u baahan yahay qoyskuna maamul uma baahna ee garba siman wey qoyska reer galbeedku waa burburay shirkad iyo iskaabule wada degan weeye qoyskoodu sidaasay innagana inaga rabaan inuu qoysku burburo ilmahana dawladdu yeelato marka dambana dhalmadaba la iska daayo maxaan u dhali balaya ku dhacay dhib mooyeen dheef male la yidhaahdo baaraka allahu fiikum jazaak allahu khayran fadiilat sheekh ilaah barakeeyo 3 su'aalood baan gacanta ku hayaa 3daasaan israacinaynaa su-aasha koowaad waxay leedahay gabadhani haddii aan nadar galo wixii aan nadarka ku galayna aanan helin wixii kafaaro ahayd waajib ma igu tahay inaan bixiyo oon sameeyo su-aasha koowaad ta kale waxay leedahay haddii aan dhaarto maxaa igu waajib oon dhaartii inaan buriyo haddaan dhaarto oon dhaartii buriyo maxaa igu waajib noqon haya gabadhani waxay leedahay hadal badan bay qortay waan soo koobaynaa nin baa shaqaale ii ahaa ninkii asaga ahaa lacag baan u hahayn jiray oo u aruurin jiray lacagtii ay iyadahayd asagoo oo 200 uu igu leeyahay 200 oo shilin meesha waxay ugu qoran 200 oo shilin 200 asagoo igu leeyahay yaa uu iga tegey waana waayey kadibna ninkii wax war ah kama helin marka dadkiisii iyo ahalkiisii markaan raadiyeyna inuu 2 ilmood oo u dhalay ay jiraan baa la ii sheegay 2 ilmoodna meeshan aysan joogin lacagtaa maxaan ku sameeyaa ninkii wuu dhintay alxamdulilah su-aasha koowaad ee nadarka waxba laguguma laha nadarku macnihiisu waa shardi baad xiratay ilaah waxaa haddaad i siiso khayrkaasaan samaynayaa wey haddaan wixii lagu siinin laguguma laha khayrkii haddii aad wixii samaysay lagu siiyeyna khayrkii inaad samaysaa lagugu leeyahay haddii aad awooddo haddii aad awoodi weydana su-aasha dambe kafaara gudka dhaarta oo kale noqonay raacaysaa aan mar labaad ku celiyo nadarka aad gasheed shardiga xiratay ee tiri ilaah waxaa haddaan helo waxaasaan samaynayaa adigoo wixii helin waxba kuguma waajibo waxba laguma laha haddii aad wixii hesho wixii aad ballan qaaday baa lagugu yeelanayaa inaad samayso haddaad awooddo haddaadan awoodinna kafaara gud dhaareed oo kaleetaad samaynaysaa taasi waa su-aasha koowaad su-aasha labaad qofka dhaartay ee dhaartii jebiyey ama doonaya inuu jebiyo qofka dhaartay ee dhaartii jebiyey ama doonaya inuu jebiyo qofka dhaartay ee dhaartii jebiyey ama doonaya dhaarta inuu jebiyo kafaara gud baa u bannaan oo u furan waana isku mid kafaara gudkaa wuxuu bixin karaa markuu dhaarta jebiye kadib ama wuxuu bixin karaa intaanu weli jebinin buu sii hormarin karaa waa alkafaara qabla alxinti bay yidhahdaan kafaara gudku waa aayaddii suuratu lmaa-ida lagu sheegay laa yu'aakhidukum allahu billahwi fii aymaanikum ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة
inaad 10 miskiin quudiso oo hal mar wax dharjiya mid walba aad siiso ama 10 miskiin aad arad bixiso oo mid waliba wuxuu salaad ku tukan karo dhar aad siiso haddii uu rag yahay iyo haddii uu dumar yahay hadday isku jiraanba arad bixin waxaa looga jeedaa dhar asturaya cawrada oo lagu tukan karo haddii aadan ama aad addoon xorayso innagoo addoon la xoray haddii nooma yaallo haddii aadan dhaqaale ahaan awoodin ama goobta aad joogtay iyo sida kuu suuragalka ah aadan miskiinkiiba heli karin 3 maalmood baad soomaysaa oo bedel ka ah kafaara gudkii masaakiinta wax la tarayay faman lam yajid fasiyaamu 3 ayaamin daalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum saasaa kafaara gudkiinnaha dhaarta haddii aad dhaarataan dabcan dhaartiina fulin weydaan nadarkii baa lamid ahoo nadarkii haddii aad awoodi weydo waxaad ku nadartay kafaara gudkan dhaarta oo kalaad gudan oo nabigaa sheegay sala allahu alay wasalam oo wuxuu yihi wakafaaratuhu kafaaratu yamiin kafaara gudka nadarku kafaara gudka dhaarta wey qofkani wuxuu leeyahay qof baa lacag igu lahaa qofkiina meeluu ku dambeeya garan maayo lacagta tiradeedu muhim maaha way badan kartaa way yaraan kartaa haddii qof xuquuq iyo xoolo kugu lahaa ama ha ka soo jeeda shaqo uu kuu qabtay ama deynaad ka qaaday ama amaanuhu kuu dhiibtay oo kugu baxday ase aad weydo meelaad u raad raacdo marka koowaad daydaygaasa lagaa rabaa haddaad garan weydo qofkaasi xoolihiisa waad sadaqayn meel khayr iyo wanaag baad ku bixin haddii uu intaa markii dambe aad heshana waad u sheegi inaad saa ku bixisay xoolihii hadduu kaa aqbalana wanaag hadduu kaa aqbali waayana xoolihiisii waad u celin sadaqadii aad bixisayna ajirkeedii adaa yeelan haddii uu kaa yeela ama aad sidaa ku weydana xoolihiisii aad u sadaqaysay haddii uu muslim yahay ama muslimnimo ku dhinto ajirkoodiiyo u biiray buu heli laba faa'iidaa ku jirta marka xoolihii qofku adiga kugu maqna aakhiro inaan adiga lagu qabsan oon ajirkaa loo qaadanin oo isaga ajirkiisii uu ku kaaftoomo adu badbaadadaasay kuu tahay oo camalkaagiibaa kuu badbaadi isagana tiisii ajirkeedii uu kaaga kaaftoomi isna faa'iiday u tahay qofkii muslim ee aakhiro ajir la siinayo sadaqadii xilligaad bixisay ilaa xilligii ilaahay la doono ajirkii waa u badanayaayo waa u siyaadayaa isna faa'iidaa ugu jirta adna faa'iida kugu jirta ajirkii badanaya haddii intaad dib ka hesho uu yidhahdaanu ajirka aakhare ma doonayana dee sadaqadii iyo ajirkeedii aday kuu soo wareegiyo sadaqaadkaad la baxaysay bay kaaga mid noqon taana waa shaa saddexaad wabilaahi tawfiiq sheekh waxay tiri maamo sodohday ah ayaa waxay ii dhiibtay lacag waxayna iigu dhiibtay inaan maamo kale u geeyo lacagtii baan isticmaalay markii la weydiiyeyna waxaan idhi lacagtii waan geeyey maamadii markii la weydiiyey waxay tiri ma helin anigana waan ku dhaartay waxay tiri arrinkaas maxaan ka sameeyaa sheekhow aad ayaan u codsanayaa micnaha in laiga jawaabaan u malaynayaa waxaan u malaynayaa inay tahay taleefonka maxramka haddii taleefonka uu nikaax uu maaragtay laga weydiiyo oo wilaayada uu ka bixiyo miyaa saasay u eg tahay mobilka iyo shan kaleeto ayadana xoogaa tafsiila ku jirta madmuunkeedana waxaa weeye waxaan furay xaaskaygaan furay ninbaa iskalaan u malayn tan kuwii haweenka ma aha marka furiinkana wuxuu ahaa buu yidhi waa la igu khasbay oo gabadha waxay tiri mar waxay tiri anoo qaawan baan bixi wayna samayn kartay oo dabeecaddeeda waan aqaanaa way samaynaysaa haddaad ifuri weyso anoo qaawan baan baxayaa anoo arrinkaa ka cabsanaya dalqad iga dhacday mar kalena waxay tiri facebookan kusoo qori ninkayga cudur xun buu qabaa
sawirkaadana waan soo dhigi markaana dalqad kale iga dhacday labada jeerba aniga ooma jeedin maxaan sameeyaa alxamdulilah gabadha qofka lacagta loogu dhiibay iyaduna isticmaashay kadibna ka dhaaratay dembi weyn bay gashay towbadeeduna waa laba qaybood mar waa ilaahay inay u soo noqoto dembi dhaafna weydiisato kii horena ka shallaydo dib inaynagu noqonina go-aansato shuruudii towbada laga rabay marna waa xoolihii iyo xaqii lagu lahaa inay bixiso wey xoolihii waa inay bixisaa qofkii lahaana siisaa xuquuqda bini aadamku cafiska ma gasha iyo towbada gaarkaa iyada guditaan iyo bixin weeye saa darteed mar waliba xaqa bini aadamka iyo xoolaha uu leeyahay dee xoolahana xoolo ulakac loo dhacayba weeye oo loo boobay khiyaanaduna waa calaamadaha munaafiqiinta maanta beenta ana ma wanaagsana saas darteed gabadhu ilaahay u toobad keento xoolihii lagu lahaana ha iska bixiso weli waa lagu leeyahay dhaartu xoole kama cafiyeyso nabigaanu nin xoolo saa ugu dhaaranaya wuxuu ku yidhi waxaan kuu goynayaa haddaan saa kuugu xukumo asaadan lahayn qitcatan min naarin gabal naaraan kuu goynayaa marka xoolahaasi waa gabal naara dadkii lahaa ha siiso xaqoodii ha gudato su-aasha labaad telefoonka nikaaxa guurka telefoon wax ma lagu guurin karaa haa dabcan laakiin shuruudeedu u baahan yahay codka dadka waa isu ekaan karaa qofkiina dhowaan waa inkiri karaa isagoo isagii ahaana waa inkiri karaa qof kalena waa iska soo dhigi karaa waxay u baahan tahay in la helo dad markhaatiyo ah oo garanaya qofku hebel inuu yahay qofkana qofkii wilaayada lahaa uu yahay ama qofkii wax loo nikaaxinaya telefoonka ku aqbalayay uu yahay oo ilaa telefoonka codku culimmadeennii hore waxay ka hadli jireen wax telefoonka u dhow waxay ka hadli jireen qofku isagoo wejigiisa la arag laakiin codkiisa la maqlayo hadduu meel gidaar dhabarka ka fadhiisto ama albaabka dhinaciisa kala fadhiyo oo hadalkiisa la garanayo ma qaadanaysaa xukunkii waxay dhihi jireen haa mar haddii codkii la garanayo oo dad isaga yeeqiyo codkiisa isu yaqaana ay jiraan derbiga iyo albaabku xaggasha ka fadhiya waxba dhibi mayso telefoonku waxba kama duwana marka codku codun baa la maqlayaa wejina lama arkayo waxaan ku talin lahaa laakiin haddii telefoonada wax ku guurinaysaan kuwa maqalka iyo muuqaalka ka dhiga hadda way fududaatay adeer kaamerada soo hor fadhiisa dhaha inaa adiga tahay iyo in kale ha lagu arkee diba kaamera nadiifa inta marka la geeyo wax badan kama duwana qofka ku hor fadhiya iyo qofka kaamerada hor fadhiya su-aaluhuna maayahanama kaamerada aad bay u bateeno labadii ninkii rabay gabadha inuu arka kaamera ma ka arki karaa kii la sheekaysanayay kaamera ma ka sheekaysan karaa kaameradii lifekii bay lamid noqotay dadka hadda marka ays aragno dad badan baa oo tv naga arkay baa na garta hal waxun baa u dhimanaada marka inta kale uma dhimana qofkii kaamera iyo tv ka arka inuu toos ku arko hal arrin bay ku kala duwantahay hadda inaad dheer tahay inaad gaaban tahay inuu kala garto wadoo taagan hadduu ku arko ileen kaamerada waa la fadhiyaa ama qofku inta sentimitire u yahay ma cabirayso marka waxa keliyayna dhahaan waxaa weeye inaad gaaban tahay aan ku mooday inaad dheer tahay aan ku mooday intaas keliyayna dhahaan inta kala garasho mar haddii qofkii muuqaalkiisii la garanayo codkiisina la maqlayo maxaa dhexaa dhibaataa kuma jabna qofka ninkan xaaskaygaan furay buhi 2 jeer marna anoo qaawan baan bixi bay tiri haddaan dalqadaydii siin marna cudurro xun oo dilaa uu qabaa baan dhihi sawirkaaga facebook inaan soo dhigo dalqadaha ma dhacaan maya labadaa baawil ikraah waay midda la yidhi qofka waan ku ceebayn oo cudurkaa xun buu qabaa baan dhihi oo facebook baan ku soo dhigi dharbaaxa iyo toorey la geliyaa dhaanta hadal cayood ku tiri iyo gacan aad u qaaday oo in yar aragtayna facebook la dhigoo 4 daafood ee caalamka laga ogaaday inkasta intii taqiina bay aragtahay dhibkuu soo gaarsiinayo baa ka badan saas darteed
dee facebookan ku soo dhigi beentaana waan kaa sheegi ma sawirkaagana waan raacin cid kastoo berri aragtay kii cudurka qabay wayay dhahayaan sooma baabul ikraah wey tan iyadoo ay isku samaynayso ikraah miyaa waxay culimmadeennu ka hadlaan hadduu qofku yidhaahdo waan isdili ama halkaasaan iska soo tuuri haddii kale warqadaydiisii ama dab baan isqabadsiin waxay ku xihan tahay adigu ikraaha lagu ikraahaye qof kale aan wax yeeli ma noqon kartaa waxay la mid tahay aabbahaa baan dili hooyadaa baan dili walaalkaa baan dili ama qofkaa muslimkaan dili ikraah ma noqon kartaa haa noocan haddaba iyadu anaa isdili hadday dabeecaddaa suuragal ka tahay baabul ikraah weeyo alikraah aladabi kay fuqahadu u yaqaanaan wey labadaa dalqadood midna dhici maayaan hadday haalibu dannigu say u badan tahay inay sidaas samayn ay tahay qof sameeyana dabeecaddeedu ay tahay waxaan silayaa qofka leh qawanaan baan ku bixi misan qofkaa maskaxaan fayoobay baan u malaynaya waayo waxa uu samaynayaa qofkaa keliya wax ma yeelaye inta isaga uu isyeelayaa ka badan inaad qawanaan ku baxdo oo ninkii berri uu yidhaahdo warwaama iska furo dhaqan xumaan u furay dhibku yuu ku harayaayo oo baaqi ku noqonaya waxa isceebay kooba sooyada maaha qofkaan isa maskaxaan fayoobeyn iyo inuu qofkan kale ku og yahay halkaa hadduu gaaray inuu soo dabci oo isku hallayn u leeyahay labada waa dhici kartaa waan u malaynayaa aabbahay ayaa nin u ballan qaaday zako wuuna dhintay aabbihii baa dhintay ehelkiisa maxaa ku waajibay haa su-aasha labaad lacagta forex online qofkii riba iska ilaaliya ma geli karaa meesha zakada waxay ku xiran tahay laba arrimood baan kala qaadi xilligii zakada uu ballan qaaday ee xooluhu zakada ka go-ayeen aabba nolol ma ku gaadhay mise kuma gaadhin hadduu nolol ku gaadhay waajib bay ku hayd inuu bixiyo waqtigeedii sakadiina xoolihii waa lagu leeyahay inaad qofkii siisaan waa arrin wanaagsanoo oofisaan ama fulisaan ballamihii aabba qaaday hadduu xilligii sakada ka hor dhintay xoolihiina la qaybsadayna dee ballanqaadkiisii wakhtigiisii lama gaadhin waxna kama saarna laakiin aabba ballamihii uu qaaday iyo ciddii wanaag ka dhexeeyey marbale wanaajintoodu waalidkaa ciddii wanaag ka dhexeeyey wanaajintooda iyo waxtarkooda intaada woodaayey baarinimadii waalidka baaqigeeda iyo hadhaageeda wey marka hala wanaajiyo waalidka dadkay asxaabta ahaayeen dadkay xidhiidhin jireen dadkay ahalka iyo qaraabada ahaayeen dadkii ku tiirsanaa ay tiirka u ahaayeen in la wanaajiyo waalidkii baarinimadiisi iyo wanaaggiisii ay ka mid tahay ajirna way kuu tahay ku dadaal mooyeen iyaga wax kaloo waajib ku ah ma jiro wabilaahi towfiiq caruurtii waxaan ku bixinaa wakti badan iyo dadaal haddaan haweenkii nahay waxna kama soo baxayaan oo miro dhal ma laha see maxaa khaldan bay tiri miya alxamdulilah horta marka koowaad daayna waan idhi baan u malaynayaa hooyooyinku inay dadaal badan ubadka ku bixiyeen ama halkan aan joogno anu soomaaliya ma tegin waayahan waxaan u malaynayaa intaan soomaaliya ka arkay dhowr iyo siddeetankii baa igu dambeysay soomaaliya oo dowlad maxamed siyaad barre ka taliso 89kii baa xamar igu dambeysaan u malaynayaa kadib ma tegin laakiin intaan halkan iyo qurbaha ka arkay hooyooyinku dadaalka ilmaha geliyaan baa 100 jeer ka badan si guud ahaaneed inta aabbayaashu geliyaan wixii soo haray waa laga yaabaa dad kooban oo aabbo oo hooyo ka dadaal badan in la hela laakiin sida loo badan yahay 90% saa darteed taa waa ku mahadsan yihiin dadaalkii aad bixisee daacad ilaahay dartii aan insha allah ajirkiisa waa helaysaan mid ilmaha inuu hagaago iyo inuu xumaado mid kuma xidhna dadaalkii wanaagsanaa aad bixisay ilaahay aakhare ajirkaaga inuu ku siiyaay iyagu inay fiicnaadaan kuma xidhna oo ajirkaasi ilaahay insha allahu tacaala agtiisa waa ku leedihiin midda labaadii ilmihii midho kama soo bixin waa laga yaabaa qaarkood laakiin in badan baa midho ka soo baxay
laakiin waxaan u qaadanayaa hadalkani midhihii la rabay iyo meeshii la hiigsanayey iyo meeshaan ka filayey dadaalkaan dadaalnay iyo waxa midhaha ka soo baxay isuma dhigmaan hadday tahay dabcan dee dadaalkaad dadaalayso caqabadaa garab socda hadday ilmuhu dadaalkaa mooyeen wax kaloo duufsanaya garab soconin midhaha la filaya ka badan baa ka soo bixi lahaa dadaalkii waxaa garab socda shaydaan iyo jinuudiisii dadaalkoodii baa garab socda oo habeen aan seexanin maalinna aan seexanin oo dadkii waaweynaa iyo kuwii yaryaraaba inuu duufsada ka shaqaynaya ilaahayna horey buu u yihi markuu ibliis ballan qaaday walaa tajidu akarahum shaakiriin ilahay baa horey yihi walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin iyo walaakina akara annaasi laa yashkuruun saa darteed inta wanaagga in badan oo wanaagaa ku hadha wanaagga iyo tarbiyada wanaagsan ee lagu dadaalay ilmuhu inta ay yar yihiin ma wada muuqato in badan oo markay weynaadaan iyo dib nolosha kaga soo duxda ilmuhu si ay wax fahmaan waxay u baahan yihiin qayb noloshana eed adigu uga sheekaysay inay iyagu tijaabiyaan ay soo taabtaan bay u baahan yihiin in badanoo waxaad arkaysaa waalidka ixtiraamkiisii aan garanayn si kasta aayad iyo xadiid loogu akhriyey laakiin u baahan inuu berri waalid noqdo markuu waalid noqdo garta wixii loo galay in badan baa u baahan nolosha inay tijaabiyaan markay noloshii arkaan garawsada dhibkii lala soo maray iyo dadaalkii lala soo maray markuu ilmihiisa la dadaalaya aqoonsadoo xasuusta si loola dadaali jiray oo markaa duca la fadhiista marka midhaha aan rabnaay qaybna waan arkaynaa qaybna insha allahu tacaala dib bay kasoo duxi doontaa adigaba waxaad dareemi kartaa maanta wacdi aad dhegaysatay baa muddo dheer kadib dib kuugu soo duxa nin culimmada soomaaliyeed ka mida baa wuxuu iiga sheekeeyey xaalad baanoo dhallinyaraha ay qabsatay buu yidhi laba khiyaar baa i hor yimid inaan waddanka ka tagoon ka haajiro iyo inaan isdilo waxaa ila ii badatay buu yihi inaan isdilo waxaan ka noolaadaan garan waayo qori baan qaatay banaankaan u baxay inaan dee 5 isku dhuftoon madaxa dhafoorka iskaga dhuftaan go-aansaday markaan dhexda sii socdo waan xasuustay buu yihi waa hore wadaadna wacdiyey oo yihi qofkii isdila waa ahlu naar waxaa yihi warniyo adduunyada haddaa ka tagto naarna isgeliso xal meehee iska tag qorigii intaan tuuray aan ma soo noqonin reerihii kuma soo noqonine oo waddankii isaga misaafuray buu wuu xereeyey waxbarashuu bilaabay jaamacad buu ka baxay nin dadna waxbara ganacsado oo shaqaystana wuu noqday kenyuuna jooga ninkan maxaa ilaahay ku badbaadiyey wacdigii maalinkii u dhegaystay baa ilaahay sabab uga dhigay inuu badbaaday isaga nin culamo oo diin fidiya noqday macnaa waxaan uga jeedaa ilmahan waxaan ku aqriyayno tarbiyada ah dadaalkan aan u samaynaynay qasab maaha hadda inaan midhigiisa wada aragno in bay waaqica arki doonaan waalid bay noqon doonaan nolosha adeegeeday arki doonaan dad baa mudan doona iyagii culays baa soo fuuli doona da' baa qaban doonta duruufaha iyo wacdiga iyo tarbiyada in badan oo kamida dib bay kaga soo duxdaan geedaha la beerayo midhuhuna inna beer weeyo durbo waa la goostaa inna waqti dheer kadib bay geedo midho dhalan noqdaan innagu sabir iyo dulqaadna aan yeelanno ilaahayna aan rajada iyo danniga iyo xusnu danni aan u samayno taasi diidi mayso qayb xumaada inay jiraan dadaalkaagadu haddaad samayso ambiyada qaar baa ilmahoodii kari waaye nabi nuux baa wiilkiisii kari waaye nabi nuux iyo nabi luut baa xaasaskoodii u maara waaye nabi ibraahim baa aabbihii u maara waaye nabi maxamed baa adeerkii u maara waaye adeeradii mid la col ahaa iyo mid difaaci jiray abulahab iyo abutaalibba u maara waaye qofku inaad jeceshahay ood la jeceshahay keliya hanuunka iyo dadaalku ma ahee iimaanka iyo qaybo ka mida waa deeq ilaahay bixiyo
saas darteed waxaa saxdii innagu inaan dadaallo oo inaan quusan wey wixii haddaan dadaalaynana qaab dadaalkeennu inaan hadba badbedello wey guri markaad degan tahay oo si muddo u yaallo si kalaamu kaga quruxsanya intii la yidhaahdo baa sariirta la wareejiyaa xafiiska si kalaa loo dhigaa dukaankii iyo ganacsigii kan haddii la arkay inuu ku socon laayahay waa laga bedelaa ganacsi kalea loo bedelaa ilmihii iyo ubadku qaabkaad u tarbiyeynaysa hadday qaarkood anfici weydo qaab kale oo tarbiyadeed baa loo bedelaa dadka yaqaanana waa lala tashadaa mar walbana ilaahay ku xidhnaanshihiisana waa la badiyaa sabir iyo dhabar adayg iyo dulqaadna way u baahantay camaliyada tarbiyadu ma aha wax maanta inta la beero biri midhihiisa la goosto ilmaha maanta adeegaya ee 10 jirka ah 10 sano dadaalaad u soo sabraysay kadib baad midhihii inaad goosato bilowday wuxuu baahan yahay 20 dambe inaad u sabirto si 30 markuu gaaro inuu xataa adoo waayeelay ku daryeel aad u gaadho camaliyada tarbiyadu dadka ha lala kaashado talooyinkana ha la badsado dulqaad iyo sabirna ha loo yeesho ilaahayna baryadiisa ha lagu dadaalo xusnu dhanigana ha lagu dadaalo intaa wixii ka baxsanna waxaad ku kalsoonaataa waajibkaagii haddaad gudatay ajirkaaga ilaahay waad ku leedahay intaa wixii ka baxsanna qof walba ilaahay wuxuu qadaray u qondeeyo noqon wabillahi tawfiiq okay qofkani wuxuu leeyahay maraan daahir ahayn maan ku tukaday anoo halmaansan salaadii ma soo celinayaa salaad waa laba mid haddii waqtigii wali joogay mise haddii waqtigii baxay waqtiga hadduu baxay soo celis laguma laha qofkana uu tukaday isagoo u filaya oo u qahaysta in uu dharkiisu daahir yahay nabigana sal allahu alayh ali wasalam isagoo tukanaya oo kabihiisa ku tukanaya baa salaada dhexdeedii jibriil u yimid wuxuu ku yihi kabaaga nijaas baa ku taalla nabigu kabii waa iska bixiyo dhinac buu isaga dhigay salaadiina wuu sii watay waayo intii hore wuxuu u haystay salaadiisa inay daahir yihiin qofka hadduu ku tukaday isagoo inay daahir yihiin dharkiisa iyo kabihiisa iyo u haysta waktigiina uu baxay soo celis laguma laha laakiin waqtigii weli hadduu joogo wuu soo celinayaa qofkani su-aasha wuxuu leeyahay waa codsi wuxuu leeyahay daroogadii iyo mukhaadaraadkii baa soo batay gaar ahaan carruurtii iyo da-yartii waalidkii iyo dadkaba in la wacyigeliyo masalada daroogada waa run way soo badatay da-yartiina aad bay ugu baahaysaa nasiib darrana waalidku aada ugama warqabo waalid badan baan ka warqabin dhaqaaqa waxa ilmahooda ay samaynayaan dabcan daroogadu inay xun tahay iyo ilmaha in laga ilaaliyo iyo in lagala dagaalamo isu sheegi mayna hadda waa waxaynu wada garanayno waxaan dhihi lahaa dhowr talaan waalidka siin lahaa marka koowaad waxaan dhihi lahaa waalidku ha raadiyaan oo ha aqoonsadaan astaamaha ka muuqan kare ee lagu garan karo ilmuhu inay daroogo isticmaalaan iyo in kale haddaadan aqoonin astaamaha iyadoo bilowa ma ogaan kartay mar uu ku fogaaday oo laga yaabo inuu laga soo qabtay inayna sahlanayn baad baraarugi doontaa waa musiibo badatay ee waalidka waxaan dhihi lahaa aan ku celiye waxaad u baahan tihiin inaad akhridaan waraysataan ilmaha iyo dadka daroogada bilaabay dhaqdhaqaaqa iyo muuqaalkooda indhahooda fahamkooda cuntadooda hurdadooda dabeecaddooda inaad raadisaan sidee baa lagu gartaa si marka ilmuhu bilaabayaba aada astaanteedii iyo garashadeeda u yeelato ood markaa uu dhow yahay u daba qabato taa waa midda koowaad midda labaad waxaan dhihi lahaa waalidka iyo meel goobaha waxbarashadu xiriir wanaagsan ha yeeshaan waalidku goobaha waxbarashada xiriir wanaagsan ha yeeshaan waktiga ilmahana ha la xakameeyo marar badan waad arkaysaa ilmihii iskuul aaday oon iskuulkiiba u kicinay meel kale iska aaday waalidkuna kama warqabo annagoo soconnaan marnaa ilmo yaryarahoo
meel gidaara ku dhuuqaya oo uniformkii qaba oo markaa weydina xagee ka timid aabbaha awey hooyada awey iskuulkeed dhigataa reerku iskuul aadaad u haysataa xiriirka adag ee waalidka iyo goobta waxbarashada ka dhexeeyahay wuxuu markaaba soo saarayaa ilmuhu inuu waxbarashada yimid hadduu yimid inuu joogo iyo inuu dhexda ka dhuuntay xiriirkaa joogtada waalidku okay waxbarashada guriga markuu ka baxo iyo waxbarashada waktiga lagu gaaro waktiga laga soo baxo iyo inta guriga lagu iman karana waalidku inuu xisaabiyo oo ka badan hadday qaadato oo markaa dabagal ku sameeyo muxuu ku mashquulay dhexda macnaheedu waxaa weeye dhexduu mashruuc kale ka fuliyaa wey ama sii socod ha noqdo ama soo socod ama labadabe hadduu waktigii kadib tago adna wakti hore kaa tegey waxaa laga yidhahda xaafaddan kusoo daahay adna kugu yidhahda iskuulkaan kusoo daahay inaad la socoto iskuulka ma lagu soo daahay mise laguma soo daahin xaafadda ma lagu soo daahay mise laguma soo daahin iskuulkan aad xiriir la leedahay aada ogaanaysi meesha waxbarashada si uusan halkan dhexdaa wakti uga saarin oosan waxu sii samaynin waxna uusan samaynin ilmuhu markayna waxbarasho ku mashquulsanayn in hawl kaloo ay ku mashquulaan loo sameeyo ilmo baaga muudaa oo bannaanka isaga baxay oo derbiyada taagtaagan oo meelaha wareegaya wax kastoo xun way baran tuugay baran daroogay baran afxumay baran saaxiib xun bay baran warwareeg bay baran tumashay baran wax walboo xun buu baran ilmo daayara oon aqli lahayn oon khibrad lahayn oon aqoon lahayn oo baaga muudo ah wax walba u sahlaya waa baadi baylaha lacag meel taalla nin walba waa qaadaa nin waliba waa qaadaa de waxa sharcigu islaamku lacagta markii baayida tuugada laleeyahay qof gacan la gooyn qof bannaan lacag ka qaaday gacan lama gooyo xoolaha bannaanka haddaad dhigta adaa qofka tuug ka dhigay laakiin xoolo la xaseeyey oo meel lagu xareeyey qofkii fagfaga weeye qofka gacan la gooyey lacag bannaan la dhigay adaa baylah ka dhigay oo qofka tuug ka dhigay ilmo bannaan iska taaganna isagaa dayacan oo wax walba diyaar u ah wax walbuu gelayaa saas darteed ilmuhu guriga ku mashquuli ama mashruuc kale ku mashquuli bannaanka iyo duur wareegga ilmaha laga daayo intaa waxaa dheer ilmaha la wacyigeliyo daroogada xumaanteeda dhibkeeda mustaqbalkooda say ugu ciyaarayso lagala hadlo maantao dhan waxbay daawadaane waxyaabahan documentariga ah ee daroogada iyo khatarteeda laga duubay ama laga daawado idinkoo la jooga ushida ilmaha isagoo yarba ku daawaca in waxaa waxun ay yihiin waxaan ku dambayntii dhihi lahaa ilmahaaga isu dhowaada ilmahaaga wakti si la sheekayso la kaftan la ciyaar hadday dhowr yihiinna mid walba gaar saaxiib ula noqo iyagaa isu soo kaa sheegi aabba hebel waxaasu wadaa aabba hebel saasu sameeyey hooye hebel saasu sameeyey hooye hebla saasay samaysay kii bannaanka soo istaagay qashin wax ku tuurtuura qashin ba wax ku tuurtuuraya iyagaa ku dhihi laakiin haddaadun gafuurka isu tuurtaan oo waxaa isugu timaadaan waryaa seexda cuntada cuna dharka qaata musqusha gala keli cadayda ay noqoto iyo canaan iyo maxaad u yeeshay iyo kab laga daba tuuray hadday noqoto ilmaha ma ogaan kartid haasaawahooda iyo sheekadooda ilmahaaga wakti sii la sheekayso bar inaad kaftantaan isagu uu ku foorjeeyo dabcan iyadoo aadaab iyo xuduud leh adna aad foorjeyso iyaga dhexdooda oo kaftamaya aada isu dhegaysato kadib mid walba gaar aad ula sheekaysato gaar ula dardaaranto isu soo kaa sheegaan dhexdooda haddayna isu soo kaa sheegin xataa waa ilmo yaryara hadda adigu dhexdooda qodqodo wax warwaraysato ay ilmo wax ma qarin karaan xog baad heli meelaad xarigga ka raad qaadaa kuu bixi intayna xaajadu fogaaninna inaad soo celiso xakamaysaa isku dayi intaa iyo intii kale ee dadka ikhtisaasiyiinta tala ku bixiyaan ilaahay ha loo baryo fitanka ilahay inuu ka badbaadiyana ilaahay inaad u barido adiguna aad toosnaato tusaale fiican u noqotana wax wanaagsan weeye wabillahi towfiiq جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى waxaan ugu baryaynaa sheekha inuu miisaanka xasanaadkiisa ugu daro kelimadaas innagana ilaahay inuu anfaco waxaan malaynayaa waqti intii ka badan buu na siiyey ilaahay ha noo barakeeyo sheekha haddana waa sii baxaynaa jazaakum allahu khayran waxaa idinka tegaynaa